السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ده ونسان channel حكيم يري official فضل جنال كذا تقول سبت سبسكرايب لايك شير دشي قارسي أصحاب تاد الدنيا ده فيه ذا كل جلتو ولكن حكيم أو ذي اللي مرور بقى على شيء باش ما خان ما وجفتين بس قارسين مأركوي سبسكرايب ما خان ما العقبة ما لينا العقبة ما برا نعلى شيء بس وحركة بس هذا قلها موضوع عادي مدوان تو محي كلت مدام سالت معي أهد ونسينا الإسكاي جري dadka nasana ku jiray dadka guriga ku nastaan laakiin shalay bingada ku nasana umaleynani sinada xagga iyo shidneed ka gudub barnaamijka ay wada maanta wax kale ma ahan waa mawduuceena rifooga maamaha rifooga ka shidanta yaa idin wada kulay maanta qof kale ma aha waa nin isku bedelay dumar inuu iska dhigo waxyaabo ilaahay ugu tala gelin ayuu sameystay kulay ciqaab adduun ee ka xun ma jirto maanta wuxuu ilaahay ku dhileeliyay in aad bedesho ama aad u isticmaasho waxyaabo noocyo kala nin raga ilaahay ka dhigay boqolooba ilaahay ka dhigay ina baxdo khaleemo isku sameeysid ee aad iska dhigtid qof dumar ma aha aad dhahayd aan khaniisa ahay nin cadaan bay qabasana ahay waa lagaaga haboon yahay waan kula talinayaa kulay maadaama aad farahooba ka baxnaas u sameystay waxyaabo kale hoosena uu sameystay si isbedel qalin uu maray sidaan wada ognahay ninka wuxuu ahaa nin Soomaali ah wuxuu u dhashay dalka Soomaaliya gaar ahaan qolada had doonaysa inay hay goon u goosad noqoto waa Somaliland walaalaheena ma ku xumeynayno oo ma rabna ina caayno because dad dhan shakhsi lama cayn karo ma hal malayna badda ma qormiya ay Soomaali tiraahdaa laakiin waa maxay waxa ku sababay inuu bedelo jirkiisa iyo maxaa keenay inuu sida u dhaqmo kulay tama garanayo wuxuu ilaahay jecel yahay ayaa mar walba hanuunka haleela laakiin ma garanayo walaalkii waxyaaba uu sida u sameeyay laakiin hadda maxaa qabsaday ilaahay ceebtaadu asturaha la dhahay laakiin maalin ay soo bixaysaa inkastoo hore u dhahwaa qaba waa la yeelila laakiin maanta maxaa ilaahay tusay in wadanku u joogay uu ka tagay dalka Mareykanka uu tagay wadanka Finland askarta booliiska Finland qabteen asoo diiday don't touch me dhahayo iyo waxyaabo kale bal aan fiirino wax yar ka soo qaadano Don't touch me. 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 سأقول جدا معها مذوب أو صومالي أو بدلي أقل كيسة جرك إلهي قروح بدنا وشي إرجع نمن إلهي شيء بدلي إسكدي قف كنت لي الدمر هذا هاي معلومة بقى سامبا هاي كلية وحياة بقى وكهر لي مرات قار مكعد في رسد ما يسوق من كلام أفكينا وحكى لنا مع وحياة بقى وشيء واحد إنه يا قف دمر سببته وحده بدلي جرك كيسة تكن كيسة قاد كيسة من فوجنا مرة الجربة ودين إسلام ما شيء جنة كل إيمان إله كفاية إيمان إله سعيديو هذا هاي ما أنت كفد مرة وأجدنا واحد دعية سقسب يا موسى يا جاري وبريء هن سيدي نينك مدو أمريكان في الودلة عمل بلاقة بنا أصور ده هاي ما نفسن كذي كل إنجليش كحوا إنها فهمي سنة أمالنا يا أيها جاري سقسب الوسارة يا ما دام وسكدي وحوس أهل haddana dadka lagu cadaadinayo in ay raacaan ama awaamirta ama amarada ka soo baxay booliska kuleet marka arkayseen jilbaha ayaa dhulka u yaaleen si uu gurgurana jilbaha ayuu ku socday saa dareemaysan bal ma la dhihi karaa qof nin rag ee maanta boqolow ah ayaa isbedelay kuleet aragna waxa gaalanahay dhahay kan laakiin jirkiisa ayuu bedelay waxyaabo uusan lahayn oo ilaahay u dhalin ayuu sameystay wixii ilaahay u dhaliyay وخلين بوكو سمي وجركي سقاب أهان أيو بدله
codkiisa waa dareemaysaa nin inuu yahay laakiin muuqaal ahaan marka aad fiirisid miyuu ku leeyahay qof rag ah waa maya because jirkiisa qalimo badan ayuu ku sameeyey oo isbedelo fara badan ayuu ku dhaqaaqay kulley tasaawada ogna horta in qof walba ilaahay ha hanuuniyo xaqan ilaahay ha tuso xaqa ilaahana waa tuso ma dhihi karnaa kama ku dambaabi karna laakiin waxa uu yahaba dambigiisa ilaahay nooma qoro waxaan leenahay ilaaha ada abuurtee soo hanuuni halka anaga daawanaysaan waa حكيم ير official fadlan channelka dad ku cusubta subscribe like share si gaarsi asxaabtaada dunida daafeeda kala joogto mar walba waxaan ka codsanaa inaad noo sii share gareysid oo sii gaarsiisid asxaabtaada dunida daafeeda kala joogto oo inoogu soo biiraan haddaa channel ku cusub tahay subscribe dheh gambalaal furo saa u hesho muuqaal alla muuqaalka ugu horeeya qofka horeeya daawado ah u noqon haddaa hore noola joogtay share sida commentiga noogu reeb wixii akhbaara ama ra'yi aad noo heysid salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu